tikniiga iyo wixii suugaana iyo wixii oo dhan idinka iga badiya waa mahadsantihiin soo dhow walaal jaamacadda Barani waxaan filayaa dad badan oo aan ku garanayn inay meesha joogaan oo caawa ku bartay afhayeenka madaxtooyada Puntland bal aan ku nasanno DJ-ga maadaama su'aalihii fanaanka ku bateen iyo dadka shacabkaaba oo DJ Ayub mise DJ hadda waxaa noo joogaa waa baxay waan filayaa DJ kale Ayub حواجب okay bal qalbiyada noo qabaji khayr Allah ku siiyo wax yar اوكي ما فنانكم اصحابته ماشي كنت ما هي سبيس وطلبنا يعني سو دوق warniyo horta waxaan ilaaway cabdidhaan taabiidu iyo cabdidhaan hees waxaa jirtay aad codsatay oo aad tiri heestaasi anaa leh oo ana iga hadlaysaa laakiin waxaan ilowna filayaa heestu maxay tahay horta bal shacabka ku dhegeysanaya annagaba naga jecel bixi maxay ku saabsantahay heesta maxaa laga qoraa cabdidhaantu si fiican laguma maqlo hadda malba ma jira hadda soo dhowo maadaama dadku ay heesta in badan dhagahooda ka dhex guuxayso waxaan jeclaan lahaa in inta qisada heesta laga sheekeyn abwaaniintii baa laga yaabaa inay joogaan in heesta shacabka loo yar daaro heesta hadda u dambeysoo daaraysa ayay ahayd oon yar dhegeysano ku nasano intay dadku codsiyadooda soo gudbisan doonaan insha allah okay bal heesta magaceeda inoogu celi cabdidhaantu heesta magaceedu wuxuu ahaa xarir heesta magaceedu ma horta kaamaan dheeraanaha heesta farxadan la iloobo de waa meesha dad aad u badan baa ku jire bal kaamaan dheeraana heesta hadda daaraysa Ayub mala socotaa ku soco umadayal sanine nasiibka halkaa ina dhaafi waaye taabtii imaad xumaynayni calafka ina kala dhaqaaji umadayal sanine nasiibka halkaa ina dhaafi waaye taabtii imaad xumaynayni calafka ina kala dhaqaaji kamandeeranine waxaan ahay qofkiigiyo ruuxaaga raace niyadaadu yeedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye kamandeeranine waxaan ahay qofkiigiyo ruuxaaga raace niyadaadu yeedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeye isoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo kodhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo jacaylkii hadduu dhantaalmay adduunyadii may dhammaane hadhiiso dhaqan baan ku leeye isoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo hodhiisoo dhaqan baan ku leeye dhigaa u sarree walaalo jacaylkii hadduu dhantaalmay adduunyadii may dhammaane hadhiiso dhaqan baan ku leeye aad iyo aad baa umahadsantahay DJ Ayub odayga cabdidhaantaana heesta waxaan filayaa sibuu uga leexleexanayaa taariikhda heesta inuu nooga sheekeeyo nin jabkiisu qarnaya waan filayaa cabdi oo kugu adkeynmaya horan kaga gudbayaa waxaan siin lahaa meega inaan kusoo dhaweeyo dadka qaaliga nagu ah inala jooga gabadha ina youtuberadeenna maasha allah Tina Farey
farxadda Soomaaliyeed bay qayb ka tahay. Tiina may maqaltaa walaal? aad iyo aad dhammaan waan islaamayaa talabaad caawa soo dhaweynayaa fanaaniinta quruxda badan khaasatan walaalkay xariir waxaa leeyahay welcome waa ku faraxsanahay inaan waqti wada qaadano oo aaladan cusubna caawa marti noogu tahay oo ku faraxsanaan walaal welcome mar labaad mar saddexaad aad baad umahadsantahay walaal ku salaamaya Tina salaam sidoo kale waxaa hadda dib naga soo gaaray xildhibaanadeena weyn walaasheen ugu qaali ah qof bulshada Soomaaliyeed magac ku leh waa gabadha Samiira Jilacow waxaan u maleynayaa dad badan baa garanaya Jilacow markay maqlaan qaalido miiga soo saar miiga soo dhow walaashay Samiira Jilacow waa kaa qaaday walaal igu qaaliya walaalkay qaalid walaa meeshan dad badan oo aan koobi karin de jaceelka u qaba iskugu imaaday waan ku salaamay walaalkay xariir axmed walaalkay shiino culey digriyow walaalkay rasmi walaashay Tina Queen 9 walaalkay cabdi dhaanto walaalkay DJ Ayub walaalkay DJ Ice de idinka dhan ima soo koobi karo waa aad iyo aad aan salaam xariir axmed especially abo I really love you and I'm a big fan of you waa ku taageersanahay mahadsanid walaal Samiira aad baad mahadsantahay Allah ku shafo dhawaha walaal shacabka waxaan ka codsanayaa horta dhammaan shacabka nala jooga quruxda badan sida qaayaha iyo qadarinta mudan noo ixtiraamiya noola jooga noo dhageysanaya fanaaniinteena DJ-yaasheena abwaanadeena dadka yacni bulshada Soomaaliyeed magaca kule ee meesha nala saaran inay dhammaantood follow gareeyaan si aan ugu garana dadka dad badan oo hadda waxaan arkayaa fanaaniin magacyadood qaatay oo meesha soo geliyo baxaya soo geliya aan gacan qabano fanaaniinteena garabkooda aan istaagna insha Allah haddana barnaamijka hore ugu soo soconaynaa bal waxaan jeclaan lahaa fanaaniin kale waxaa nala jooga stage-ka nala saaran oo nala soo dhaweynaya fanaanka ayagana horta inaan chance siino ay ugu soo horeysay walaasheen Samiira Naima عيسى ما يمغلسها اوكي مشغول بعد شفته جميل وانكم مقلي والله نعيم عيسى قالي وان كان حدا ابو نعيم عيسى وكم مقلي سالك ما جعلنا اني هذا الشيء نعيم هذا هاي اسكو دجين هذا كسو هذا بلا انها بدل شنطه بقول قف دامنا سكشوت كده هرا مسونيا ايضا لا سهل دونت جميل ما مغلسها لكن aad iyo aad walaalka ku maqlayaa fanaan baa tahay fanaan soo dhaweynaya walaalkeen xariir axmed maxaad ku soo dhaweynaysaa ugu talagasho wallaahi hal heesa dhac ka siiyo waxa weeye xariir axmed maasha allah aqoon khaasa isku leenahay walaal qiimo badan intaas ka sokow fanaaniin kale oo aad u badan way joogaan oo aad u qiimo badan oo aad u jecelahay waxaan jeclaan lahaa in caawa isaga ku koobnaato oo anigu aan ka mid ahaadoon fanaaniinta soo dhaweynaysa walaalkeen maasha allah waa fursadda inoo soo koobay aad baa mahadsan tahay haddaan hoos u degto waxaan bal mega ugu dhigi lahaa diidan soo saar qaalido mega ugu hor mega walaal miga waa la ahay waxaan filayaa midda kale horta aan mid in ka dabageeya kor waxaan soo saaraynaa dhammaan horta asxaaban jecelnahay baa hoos jooga laakiin dadka fanaaniinta abwaaniinta dadka yacni bulshada magaca ku leh sida Tina adiga hadda ila hadlaya oo kale youtuberad baa tahay talent leh dadkaasaan kor keenaynaa insha Allah marka migo haddii uu fanaan yahay ama waan soo qabanaynaa insha Allah walaalka khaalid adiga ku watay waxaan codsan lahaa wiilka daaha ugu qoran tahay inaad kor soo qaatid oo su-aalo inoo hay insha Allah horta dadku waa badan yihiin dad badan oo aan arki laahay baa jira laakiin hawsha loo wadayaa inshan waan ku haynayaa cabdi dhaanto qof xataa ii dirsada aan la ahay qof kasta iskala ma la soo saari karo dad badan oo asnaqaana asxaabnahay hoos fadhiyaan iyaga xataa jaan siin karin so insha Allah xariirna nala joogaa wuu idin maqlaa
uuna idin salaamayaa aada ugu mahadsan tahay khaalid ku soco walaalkay okay aad baa mahadsantahay walaashii kuwinayn khiyaarta sharafta lena waxaan ka codsanayaa aan ka cudurdaaranayaa weliba dadka magacyadooda ay carabaabeen haddii aan arki weyno ama aysan macquul ahayn aan kor soo saarno laga raali ahaada 100% war cabdilaanto niyo fanaanku fanaan walba mayga markaan agrigu aamusaya cabdilaanto meel maqalka khaalid muudkaa ka dhexalin khaalid maqlay walaasha xoogaan kaa dhex galo ayuubana la joogo aan xataa weli la hadlin xariir iyo lowkii dad sorry badana stageka fuula saaran aad iyo aad sorry waan ilaaway ayub ku soco walaalkii aad baan ku salaamay walaal khaalid adiga iyo daadiyaasha barnaamijka fanaaniinta abwaaniinta weriyaasha qaariga meesha isu wada yimid dhammaantii aad baan idin salaamayaa waxaan si khaas u salaamayaa walaalkay xariir axmed oon aqoon khaas isu leenahay ilaa waxbarashadii oo yaraanta wada qaadanay xariir ninka kula hadlay waxwaale ayuub aad baan kuu soo dhaweynayaa waan ku faraxsanay caawa inaan meeshan isku helnay hal su-aal baan qabaa aan jeclaan in xariir weydiiyo xariir waxaan weydiin lahaa heesooyin wuxuu qaadaa inta badan oo qisooyin ka hadlo aad u macaan marka ma jirtaa hees qisadeedu isaga ay si khaas uga hadlayso xariir haddii jirto hees adiga qiso kugu dhacday ka hadlaysood qaado waad mahadsantahay soo dhow xariir waa walaalkii cawaale ibaad ayaan kuu salaamayaa allaha ku sharfo aad ayaan ugu faraxsanay inaan maanta halkan ka wada hadallo inay waqti hore isugu kan dambeysay dhalinyartaydii waxaan caawa halkan ugu yimid inaan inta badan aan waxbarashada soo wada qaadanay cawaalo horta ma jiraan heeso aan anigu aan horey u qaaday ama ka hadlaysa qiso aniga igu dhacday oon sameeyey horeyna waan u sheegay cawaalo walaalkay aad ayaad u mahadsantahay waan ku salaamayaa ma jiraan qiso aniga igu socoto oon dhihi karo heestaas qisadaas ama noloshaasaan ka qaaday ama qisadaas aniga igu socota aad baa umahadsantahay walaalkii ayuub magacu magacaa maqalnay cawaale waxaan siin lahaa walaalkii loki horta assalaamu calaykum waa idin salaamay dhammaantiin khaalid aadahiyaasha iyo mataqaana dadka korka saaranba ilaa inta hoos fadhida xariir walaalka adigana waan ku salaamay kolley xariir aqoon fiican aan isku leenahay waxaana mataqaana dad hal kubad kusoo wada ciyaari jiray laakiin codsi yar baa wataan wax su-aala ma wadanin oo weliba ka imaada hoos gabdho hoos fadhiya igu dheheen mataqaana waxaad noo weydiisa xariir inoo qaadi karo heestii hablaha jarar marka xariir haddaad noogu dhufan kartid gabdho badan hore jarada hoos fadhiya marka heestaasi soo dalbadeen walaalkay aad baan idin salaamaya dhammaantiin kusoo dhawo clubhouse aan ku leenahay mar labaad mar saddexaad mar afraadba waan kusoo dhaweynaa walaalkay hore u soco noolow intaasa kaga baxay aad iyo aad baa umahadsan tahay xariirow waxaan filayaa heestaasi waa markii labaad la codsaday marka adiga shacabkaan isu kindeynayaa kusoo dhawo walaal khaalid aad baad u mahadsan tahay heesta waxaan malaynayaa inaan horey u qaaday oon mar ka dhawaajinay walaalkay laakiin aad ayaanu salaamay waan ku celinaa insha allah kusoo dhawo mar labaad inaan soo qabto weyaan hadduu ilaahay ilaado asiiba waxay noqdeen wixii madarada aad madartay waqti fogno igu dambeysay moog aad iyo aad yaa miyar akhriin halkaa ugu sii fasaxaan jeclaan lahaa ayubow sidii aan horeyba u sameynay xariiro walaal hallo waxaan kaa codsan lahaa bal labada line oo u horeysa si bulshadu codkaaga ugu raaxaysato kadibna dj-ga noo sii wadi doona insha allah hablaha gaygan u heer wacan hubaal dhagax buurna laga helo ya waxa ku xigo garan maayo dhagax buurna laga helo hablaha faniyo hees berigaan qaadada igu dambeysay moogta waan fahmi karaa midda kale waxaan maqlay fanaanka heesiisa ma dhegeysto walaalkiina haddaadan hadda akhriyi xaamimtaas dj kuso kuwinaane abayo mursal geeya hoos joogo tubaac yaraa joogo hala soo qaado insha allah okay hoos hoos tubaac yar waan arkay tubaac yar waa kanaa iyo mumtaas qof kale yaa waa qof kale mursal geere
الله حرمتي وحسد الله لا يغفو في شرف وإنجيلي وحسد الله الله جيد وغير وعن وبالده يحضرنا ليها لشغل المامين وفي غضني أقوم ملهي بدل أقمري الله شرر وخاتمنا waxaan codsanayaa dhammaan shacabka meesha jooga barnaamijkeena inoo sheer gareeyaan noo biin gareeyaan sidoo kale ay follow gareeyaan fanaaniinta stageka nala saaran oo ugu horeeya walaalkeen xariir caawa waa inuusan halkaas ka degin isagoon 1k farxadda iyo kalsoonida shacabkiisa oo halkaa kala dego insha allah hawshaas idinkaa inii deynayaa dadweynaha quruxda badan ee hoos naga daawanaya khaalid aad baan ku salaamayaa tawacirana aad ayaan u salaamayaa fanaankayga halkaa qolkaa tawaciro kasoo qaaday nin saaxiibkii halkaa iga jiro loo qaygala hadlaya xasan maalin ugu qoran tahay xaga magaciisii sheeg xasan maalin xasan maali war ila fiiriya xasan maali waa nin culus oo xasan maalin DJ heesaa noo fasax insha allah aan ku nasano تباعي ماضي إن شاء الله تباع ما قصير tubaac ku socod tubaac ku soco walaalkeyga thank you waa mahadsantihiin waxaa sugaya keliyaata gud meeshaan dhalinta quruxda badan ee abaabulisay soo intay dhawow mikrofoonka ii dhiibayaan aad baa soo mahadsantihiin dhawow waxaa u jeedaa dad cisi iyo sharaf iyo karaamo ku fadhiya meeshan oo dee haybad ilaahay siiyey mas-uuliin ku jiraan wariyayaal ku jiraan diijayaal ku jiraan fanaaniin ku jiraan sidoo kale walaalkayga qaaliga xariir axmed aad iyo aad baan kuu salaamayaa barnaamijaan jeclaan taageeraad tahay brother waa ku faraxsanaya maanta halkan inaan kugu arko dee kusoo dhowow club housena walaalkii tubaac aad ayaan kaga qaaday tubaac yare oo ku salaamaya walaal macaan sidoo kale aniga sharaf bay ii tahay inaan caawa halkan kala hadlo fanaan aan jeclahay dad badan caawa meesha isku baranay aad iyo aad mahadsantahay tubaac kusoo dhoweynaya maasha allah aad baad u mahadsantihiin ila fiiriya xasan maalin xasan maalin inaa ila fiirsan baa codsanayaa dadka xidigta ilahaya masha allah tubaac soo dhawow walaalkii kuna soo تباع dhawow مراكز welcome علينا waa tahay aad baan idinkugu mahadcelinayaa dhammaantiin hadda waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku nasanno hal hees oo DJ-gu noo soo xulo heesaheena soomaaliyeed ayub inta xariiro xariir ha xasan maalin uu ahaa somahan ha waa kana waa soo kulay salaamu walaalkey dhammaantiin barnaamijka noo sheer gareeya please ayuub aada ugu mahadsan tahay moha maxamed qoslaye ma joogtaa waa jooga abo noo soo dhawa xariir asalaamu calaykum qoslaye horta aana ka dabageeyo waa nin dhalinyaro ah oo degan Sweden kuna caan baxay ama caan ku ah caawinaada bulshada Soomaaliyeed dadka masaakiinta dadka tabarta daran walaalkay kusoo dhawow walaal waan dhawahay aad iyo aad mahadsantahay allah ku shirfo waa ku mahadsan walaalkii Khalid dhammaantiina Queen 9 walaalkii Axmed Xariir soo dhawaad farankeena Soomaaliyeed
iyo intaba fanaaniinta meesha ku jirto dhammaan dikriyo walaalkayga inta meesha ku jirta dhammaantiin ayaan salaamay special axmed xariir oo kusoo dhaweyna walaalkay qaaliga walaal mahadsanid dhammaan fanaaniintu way ka wada qaadayaan fanaaniin badan baa meesha ku jirta waan aad u jeclahay codkooda iyo maqalkooga iyo muuqaalkoogaba waan ku salaamayna walaal dhammaantay maasha allah xasan maalin asalaamu calaykum soo dhowo walaalkee waa dhowahay waxaan aad u salaamayaa walaalkay saaxiibkay xariir axmed iyo fanaaniinta kaloo meesha ku jira digriyo iyo tubeec iyo maxaa la yirahdaa saaxiibkay cabdidhanta dhammaan baan salaamayaa xariir aad baan kuu salaamayaa nin mashmadle afgaaban fanaanka ugu jeclahay halka waxaan kaa salaamayaa ninkii saaxiibka liibaan ahaa asigana ku salaamayaa waxaan rabaa inaan hees kaa codsado oo codkayga liibaan kugu salaamaya waxaan rabaa hees inaan kaa codsado loo sameeyey maxaa la yirahdaa adiga xamdi badan aa wada qaadeen yar maxaa la yirahdaa gabar walaashii arooskeeda ahaa oo aan uga faa'iidaysanayo in sanad guuradoodii sanad kadib heesta qaadee caaw tahay aadan kuu salaamayaa asxaabta barnaamijka daadiinaysan aada u salaamaya iyo fanaaniinta kaloo meesha ku jiro waxaan aad u salaamayaa musharax shilinku reebashiina culey aad baan kuu salaamayaa jaamac dibraani sidoo kale habeen wanaagsan walaalka xasan maalin aad ayaan kaaga qaaday master yixda ninigu qaaliya aad ayaan kugu salaamayaa adigii liiban lamaane insha allah heestaa dib ayaan ka qaadi doonaa waqti waxaa igu dambeysay sikadiisa heestaas ayadoo ma garanaysaa waxay ahayd hoo baaruudoo markiiba aan maaragtay aan kasoo noqdo insha allah marka dib ayaan ka saxaynaa insha allah xasan soo dhowolaa insha allah waa dhawaankii aad umaasantahay walaalkii qaali aad baa umahadsanta walaal soo dhawow haddana waxaa dib naga soo gaaray caawa meesha waxaa haysta funky laakiin hadda waxaa noo yimid actor soomaaliyeed oo weliba sameeya filmaanta waaweyn caana maca walaalkay soo dhawow waa actor soomaaliyeed oo caan ah filmaan badan hadda soo saaray kuwana soo bixi doona after coronavirus una soo booqday insha allah soo dhawow walaalkay waa dhowaa khaalid dhammaan asxaabta waa salaamaa maasha allah dad culculusaa ku jiro xariir axmed saaxib oo ku salaamaa fannaankii qaaliga dad badana meesha ka muuqda cabdidhaantaa ku jiro shiina colay dadka wada tiri karmaniyo maanta waa akhyaarta kulli waa idin salaama magacayga waa cabdiqani faransiiskan joogaa waxaan nahay actor soomaali faransiis aan ahay marka waa idin salaama kulligiin dhammaan waa idin wada salaama aad baa umahadsanta walaal soo dhawow barnaamijka quruxda le inaad ka qayb qaadatin waa noo muhiim bal waxaan jeclaan lahaa dad cusub oo badan baa imaanaya inaan bal mayga mid u siiyo fanaankuna oo in xoogaa noo yara nasto waxaa dib naga soo gaaraan filiyaa walaashii sami هاي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام دمان ولكن خالد كوين أمال إنا ممتاز قبي سيكوني وحنا السلامة فنان كان حرير أحمد who is one of my favorite singers in the whole world أنا حرير وحن ريسن جري واغي هور أيو حرمة هيس جري ما حستا حرمة وحاتا حور أنت walaal sameeya waan xurmay waxaa tahay حور العين تهستا واغر أنا دي واغر قلت كل الصعداء أو ولي سبورتر كذا بان هاي مرك وانكو سلام قالي walaal aad iyo aad mahadsanid walaal sameeya kusoo dhaweynaa thank you سؤالنا مكوها لك هل walaal هل سيان هايستا حداد هايستا كرتد هايستان جنان وأركا أكتالا that's my favorite song okay انت سكعت ما تنتهر jannaan warkaagtaada talbaan u qabaa codkaaga horjoogiyo daawadkaagaan hunoy ku bartaa jacaylka jannaan warkaagtaada alla ilaahay heestaas aniga si gooni ii taabatay inasan gumila socotaa jannaan u arkaa agtaada agjoogaa weliba dhinacaad igu haysaa heestaasi weliba wallaahi waxaan arkay dad ajaaniba oo aad moodid fanaankiisu u xafidsanaa heesta markuu qaadiya u xafidsan
maasha allah maasha allah maasha allah aad baad u mahadsantahay gabadha thank weliba you waa heestaa noo doortay mahadsantaha sani khaalido thank you walaalkay xariir aniguna waa adaanba ku mahadsantihiin mahad celinaysaa waa thank heestaas you waa heestaan ugu waan jeclahay jeclaa heesiisa heestaas is my favorite thank you aad iyo waxaan aad waxaan jeclaan lahaa inaan bal horta DJ-ga mar kale meelo jooga mini DJ-ga ma arkay ayuub waa joogaa anaa hadda hees kaa codsanaya liin macaan heestaas codsiyo badan baa snapchatkayga waa istaagay bal heesta hal marniyo alla yaa isig alla yaa isig aad baan horta ugu mahad celinayaa DJ-geena gacanta fudud wuu nala hayaa baan oran karnaa bal horta qof waxaa jira ii gabanaya cabidhaanto war cabidhaanto saaxiiba waxaan jeclaan lahaa inaad soo wada baxdid su-aasha meega soo dhawo horta kursiga banaanka ii yaala soo wada bax sibaad u gabanaysaa markii banaankaan saddexaad ado baa waxaan kaa codsanayaa heestii aad tiri heestaasi anay iga hadlaysaa taariikhdeeda inaad naga dabageysid dee hal heesana dhac noogu siisid aan ku nasano aad baad umahadsan tahay horta dhegeystayaasha meesha ku jira dad badan baa oo wada garanayno asxaabta ayaa meesha ku jira waxaan leeyahay sidaad barnaamijka aad uga qayb qaadanaysaan waad ku mahadsantihiin intaan heesta u kuda gelin waxaan rabaa inaan idin sheego dadka sharafta iyo qiimaha lo meeshan ku jira inaan wax yar idinka yar sharaxo xariir shakhsiyadiisa oo runtii ah nin aad u wanaagsan oo la dhihi karo waa awliyo ma garanaysaa awliyo ayaan ku tilmaama aniga markaan aniga isagu aanu kaftamayno wuxuu yidhahdaa awliyo buu yidhahdaa anna waxaan ku idhahdaa xariir waa iska ma garanaysaa nin aad u wanaagsan oo runtii qofkii barta shakhsiyadiisa runtii uunan weligii yaalihii uunan iloobeyn marka heesta qisadeeda khaalida waad igu soo celcelisay waxaan aad u jeclaan lahaa soo wada bax waxaan aad cabdiyo laguma maqlo meeg soo dhawo waxaan jeclaan lahaa in heesta aad iiga cudur daarto haddii uu maqal jiro amaan meeg iska hagaajiyo qof kale bal dhaanta iyo heesma noo isfuro qof kale siisii meega ayaan iska hagaajinaya hal mar waan refresh garanaya qaalido shacab baana soo booqday shacabka bal chance aan wax yar yara siino aad iyo aad may waa sax waanba ilaawo shacabki okay shacabka waxayna ka codsanayaa inaad taleefankiina isha ku haysaan qofkii aan soo qabto inuu soo qabsado soo join gareeyo please and please dadka hadda stageka saar ma wada hadleen waan filayaa inay wada hadleen waxaan hadlin
waxaan hadlin ma jiraan baan filayaa dhammaantood way hadleen hadda gabar baa dib naga soo gaartay akira mayn hadleen raxiimadana akira inta ka dambeysa maynan hadleen okay akira walaal kusaa walaal soo dhawow fanaankaaga oo soo dhaweeye fanaaniinta la joogtay oo martida kusaa horey kusoo waan dhawahay kulligii waan islaamay horta asxaabta qaaliga fanaankana waan salaamay fanaanka waxaan ka codsan lahaa heestiisa xaajiya inuu qaado heestaas baan ku hashtay walaal waan ku salaamaya igu soo celi maxaa tiri heestaada xaajiya walaal xaajiya ha xaajiya hees xaajiya ma jirtaa mise xaajiyaad ka wadaa miya bal yara xasuus wax yara qaad si aad u xasuusato حكيه توضح حرير حكيه sorry Soomaaliga iga xanaa iska say wallahi soo dhaweey dadka loo baahan yahay inay fanka Soomaalida dhageystaan xafiday dajiyay xaqdhowra xasilay asturay xanaansha ixusay ikabay xalamaanka حفيدي دجيي حقورا وحصلي سوري حناشا حفيدي دجيي حقورا حصلي سوري حناشا حسي كباي حرمانك حلي حلقتاي قرقارا حفيدي دجيي حقورا حصلي سوري حناشا حفيدي دجيي حقورا حصلي سوري حناشا حسي كباي حرمانك حلي حلقتاي قرقارا حكماي هباي حرمية حرمت قلبي جاي صبيرة حكماي هباي حرمية حرمت قلبي جاي صبيرة حكمتي نور شيء الذي حرفي غابتي حبكيga حكمتي نور شيء الذي حرفي غابتي حبكيga حكماي هباي حرمية حرمت قلبي جاي صبيرة حكماي هباي حرمية حرمت قلبي جاي صبيرة حكمتي نور شيء الذي حرفي غابتي حبكيga حكمتي نور شيء الذي حرفي غابتي حبكيga عيدنا ودنه حبنهيغا حبيغي كالجعيلكا كروغان عيدنا ودنه حبنهيغا حبيغي كالجعيلكا كروغان حجيي كسبناي حيلهيغا حريبتي دونيدو اي حلاغاي حور العين انا تاي حيسكا ديغاي عيدنا ودنه حبنهيغا حبيغي كالجعيلكا كروغان عيدنا ودنه حبنهيغا حبيغي كالجعيلكا كروغان حجيي كسبناي حيلهيغا حريبتي دونيدو اي حلاغاي حور العين انا تاي حيسكا ديغاي وليدا ادوك fanaanka wax ka raaligeliya heesta sigoo ereyada qaadaya inuu si ku dhex shido aadaadan kaaga mahadcelina sorry aad baa umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan arrin yar inii sheego waxaa jirta fanaanad Soomaaliyeed oo nala joogta oon dhowr jeer magaceeda sheegay laakiin sababo jira awgood aan meega furin waa walaasheen Naciimo Ciise tacsi ayaa gashay laakiin waqtigeeda quruxda badan bay nala qaadanaysaa horta dhammaanteen aanu ducayno kaadankeeda ayaa dhintay haddana waqtigeeda nala qaadanaysaa dhammaanteen aanu ducayno in kaadankeeda ilaahay jannada ka waraabiyo Naciimo walaal allah ha naxariisto walaal waana kaaga mahadcelinaa adoo tacsi kuu taalla inaad waqtigaaga na siisay quruxda badan dhammaanteen aanu ducayno faatixada umarno nacimo walaashii waa maqashaa kasinkaaga ilaaha naxariisto jannada firdowsna ilaaha ka waraabiyo qaaligo walaal nacimo ciise walaal waxaan ku leeyahay walaal maanta igu duceynaysay ilaah igu soo duceeyo ilaahay jannada firdowsa ha geeyo ayaanu leeyahay dhammaan amiin allah janna firdowsa geeyo
horey haddii aan ugu sii soconno waxaan qaalidow jeclaan lahaa dadka hawlan adoo raalli ah miyuu baxay inankii jamiil weheliye jamiil weheliye nalama joogo hadda isagoo joogaan ogaa wuu baxay insha allah inuu noo soo noqon doono waxyar aan kaasoo dhex galo aniga taleefon ay soo galay dad badanaa gadaashii taagnaayo waxoogaa iga hormaray anigana fanaanka xariir axmed baan raba wax yar oo question inaa weydiiyada isiin kartid okay ku soo walaashay abo xariir waa walaasha samiiro jilco waxaan rabay inaan ku weydiiyo heesta hadda ugu dambeysay ee liin macaan waxaa ku jiro miraha sida malabkii murmurcoodkiyo heesta murmurcoodkiyaa dhehaysa laakiin waa miro oo ka baxo dhulka deegaanka soomaaliyeed hal meel buus uu ka baxaa waana dhinacaas iyo muqdisho wixii saan ka ah marka dhinaciina ma soo jiro marka abwaanka heesta kuu qoray ma reer jigjiga mase waa reer somaliland mase waa reer koonfur muqdisho adoo raali iga ah because mirahaas aa sheegtay hal meel oo ka baxaa waana dhulka uu aabahey ku dhashay adoo mahadsan walaal aad baad umahadsan tahay horta halkan waxaan ka salaamayaa walaashay fanaanadada qaaliga ah Naciima Ciise waxaan leeyahay alla naxariistii jannaha ka waraabiyo ninka marxuumka inaga wada tagay walaashay geedkaas wuu ka baxaa deegaanka ninka sameeyay waa nin deegaanka u dhashay oo reer jigjiga ah murmurcoodku deegaamada kale inuu ka baxo waa laga yaabaa laakiin inta badan annaga xagga deegaan ahaan wuxuu ka baxaa doolo ama wardheer beesha loo yaqaano waa mahadsan tahay ma ogeyn dhinacaasi jigjigo inuu ka baxo waxaan u malin jiray dhulkeena bis inuu ka baxo marka waa mahadsan tahay walaal hay walaal samir aadaan badan aad ugu mahadsan tahay gadaal waxaa noogu soo beeray hana iyo cunaaye iyo weliba queen abshi gabadha oo qoran tahay dadka waxaan codsanayaa qofka fanaanka ka codsada ama su-aal weydiiya ama u hambaliyo soo dhaweeya inuu hoos u dego sida walaalaheena kale hoos jooga ay jaanis u helaan sida adiguba jaanis u heshay insha allah dadka intii hadashayna waxaan ka codsanaya inay iyagu isxilqaamaan qaalidow adoo mahadsan walaalinanta kariima yuusuf kusoo dal dadka su-aalaha insha allah kor usoo qaad kariima yuusuf walaal idinkuna ila fiiriya maadaama dadku badan yahay kulli ma soo wada qaban karo sidoo kale haddii ay joogto ayaan kaaba hadday joogto anigu dadku way badan yihiin waan waayey kor ha loo soo qaado Naciimana waxaan